kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socotay halkani waa Ilaysa TV oo alaaba barnaamijyo kala duwan aan idin ka soo tabino caawisnimadan caawa barnaamijyada Ilaysa TV aan ku soo qaadan doona waxa kamid ah xiisada ka taagan magaalada Jigjiga ee ka dhalatay khilaafka madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadeniya Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo gudoomiyaha xisbiga Mudane Ahmed Shide sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa shir lagu qabtay magaalada Diridhabe ee wadanka Ogaadeniya oo mas'uuliyiinta siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee bulshadu ay kaga hadleen kagana arrinsadeen xasuuqa iyo waliba dhibaatooyinka maamulka canfarta uu ku hayo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaamada galbeedka gobolka City ee sida sharci darrada loogu wareejiyay marka hore se ku soo dhawaada warkii Ilaysa TV deganaansho la'aanta siyaasadeed ee ka jirta dawladda deegaanka Soomaalida una dhaxaysa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadeniya Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo gudoomiyaha xisbiga talada deegaanka Ahmed Shide ayaa marka ka dambaysa si xoogaysanaya kadib markii maalinnimadii shalay ahayd lagu kala kacay shir lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya halkaasi oo koox ka tirsan ururka ODB-da Oromada iyo waliba shakhsiyaad uu ka mid yahay wasiir Ahmed Shide ay ku doonayeen in ay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadeniya ugu cagaajugleeyaan shirkaasi lagu qabtay magaalada Addis Ababa oo laga dalbaday madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar in qaar ka mid ah dhagarqabayaashii hore shacabka Soomaalida Ogaadeniya dhibaatada ugu geystay in dib loogu soo celiyo ka mid noqoshada golaha dhexe ee xisbiga talada deegaanka haya ayuu madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar gaashaanka u daruuray kadibna waxa shakhsiyaadka ka socday kooxda ODB-da Oromada ee maamulka Oromada taladiisa haysay ay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar u soo jeediyeen in uu iska casilo xilka madaxtinimada dawladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo ku taagan dariiqa sharciga ayaa se gaashaanka u daruuray dhammaanba dalabaadkii ay u soo jeediyeen shakhsiyaadka ka tirsan kooxda ODB-da Oromada kuwaasi oo doonayay in madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee haysta taageerada shacabka Soomaaliyeed ay si jujub iyo sharci darro uga qaadaan talada dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadeniya kadib wixii ka dambeeyay xilligaasi waa maalinnimadii shalay ahayd shirkii lagu qabtay magaalada Addis Ababa ayaa waxa kacday xiisad siyaasadeed oo cirka isku shareertay waxaana guud ahaanba shacabka Soomaalida Ogaadeniya guda iyo dibadba ay si weyn uga hor yimaadeen faragelinta qaawan ee kooxda ODB-da Oromadu ay ku hayaan guud ahaanba dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadeniya iyo xisbiga haya talada dawladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa isla gelinkii dambe ee maalinnimadii shalay ahayd waxa uu dib ugu soo noqday magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida waxaana halkaasi uu shir kula yeeshay mas'uuliyiinta kala duwan ee hay'adaha ammaanka oo ay ka mid yihiin ciidamada booliiska ciidamada arbaabatanaaga ciidamada liyu booliiska kuwa federaalka iyo sidoo kale hay'adda nabad sugidda madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxa uu amray in la adkeeyo guud ahaanba ammaanka guud ee dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadeniya lana hirgeliyo sarreynta sharciga iyo kala dambeynta iyada oo la marayo dariiqa sharciga sidoo kale madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxa uu qaaday tallaabo kale oo geesinimo leh oo uu ka qaaday qaar ka mid ah shakhsiyaadka qaswadayaasha ah ee iyagu dhibaatada siyaasadeed ka dhaxwada xisbiga talada dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadeniya haya waxaana xilkii laga xayuubiyay gudoomiyihii xarunta dhexe Abdi Xakiin Cigaal iyo sidoo kale guuleeda oo cali oo isna kamid aha golaha wasiirada kuna magacaawna wasiirka xiriirka dadweynaha sidoo kale waxa madaxweynuhu uu xilkii ka qaaday shakhsiyaad kale oo kamid aha kuwii iyagu qaska iyo qalaanqalka siyaasadeed qaybta ka aha doonayayna in xisbiga dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadeniya taladeeda haya dib loogu soo celiyo dhagarqabayaashii xasuuqa iyo xadgudubka baahsan u geystay shacabka Soomaaliyeed xisbiga haya talada dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadeniya ayaa wali waxa qayb ka ah oo ku jira
golayaashiisa kala duwan qaar ka mid ah dhagarqabayaashii xasuuqa iyo xadgudubka geystay waxaana shacabka Soomaaliyeed ay ku baaqayaan in dhammaanba shakhsiyaadkii lidiga ku ahaa jiritaanka shacabka Soomaalida ogaadeenaya in la horkeeno maxkamadda lana mariyo cadaaladda iyo waliba ciqaabta ay mudan yihiin shakhsiyaadkan xilalka laga xayuubiyay ee ay ka mid yihiin Cabdi Xakiin Cigaal iyo Guuleed Awcali oo ka mid ahaa dhagarqabayaashii xasuuqa iyo xadgudubyada joogtada ah ku soo hayay shacabka Soomaaliyeed muddadii 10 sano ahayd ee ugu dambeysay ayaana la ogeyn waxa mustaqbalka iyo masiirkoodu noqon doono waxaase jira xoga sheegaya in xabsiga loo taxaabi doono si looga abaalmariyo dunuubtii ay ka galeen shacabka Soomaalida ogaadeenaya oo muddo dheer dhibaatadiisa ay ka soo qayb qaadanayeen wararkii ugu dambeeyay ee soo gaaray fiidnimadan caawa ah ayaa waxa ay sheegayaan in qaar kamid ah 47 xubnood oo kamid ah dhagarqabayaasha wali kamid ka ah systemka iyo hanaanka xisbiga dawladda deegaanka Soomaalida ogaadeenaya taladiisa haya in xabsiga loo taxaabay kuwaasi oo ay ugaarsanayeen saacadihii la soo dhaafay hay'adaha amniga ee dawladda deegaanka Soomaalida ogaadeenaya madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxa uu ballan ku qaaday in sharciga la horkeeni doono dhammaanba dambiilayaashii qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ogaadeenaya ka galay dunuubta iyo dhagaraha kala duwan intii ay u adeegayeen maamulkii kooxda TPLF ee xadgudubka iyo xasuuqa joogtada ah ku soo hayay shacabka Soomaalida ogaadeenaya muddada 27 sano ahayd ee la soo dhaafay dhinaca kale shir degdeg ah oo ay maanta yeesheen golaha xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay ka soo saareen go'aamo dhaxalgal ah oo wax laga qabanayo xiisadda siyaasadeed ee kooxaha danleyda ah ay ka dhex abuureen xisbiga talada dawladda deegaanka Soomaalida haya golaha dawladda ama golaha xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ogaadeenaya ayaa shirkooda waxa ay uga hadleen qodobo muhiim oo ay ka mid yihiin sidii sharciga loo horkeeni lahaa loolana xisaabtami lahaa dhammaan dhagarqabayaasha iyada oo loo marayo dariiqa sharciga sidoo kalena loo hirgelin lahaa sareynta sharciga iyo hanaanka dawliga ah iyada oo aan cidna looga haybaysanaynin sidoo kale waxa golaha xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ogaadeenaya shirkaasi maanta ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada ah ee magaalada Jigjiga go'aamada ay ka soo saareen kamid ah qaar kamid ah xubnihii iyagu qaska iyo qalaanqalka siyaasadeed ka dhex abuuray xisbiga oo talada laga xayuubiyay waxaana sidoo kale la magacaabay mas'uuliyiin uu kamid yahay Cabdullaahi Maxamuud Mawlid oo haatan isagu noqonaya wasiirka xiriirka dadweynaha mudane Cabdullaahi Maxamuud Mawlid ayaa waxa uu la hadlay warbaahinta kadib markii uu soo dhamaaday shirkaasi ay yeesheen golaha fulinta ama golaha xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ee ay ka soo saareen go'aamada dhaxalgalka waxaana mudane Cabdullaahi Mawlid oo arrimahaasi ka hadlaya waa go'aamada ay soo saareen uu yiri kabinigu wuxuu ka hadlay qodobo muhiim ah oo ku saabsan xaaladda deegaanka waxa jiro ogtahay inuu jiro isbedel ballaaran oo dalka ka hara qaaday iyo deegaankaba uu ka socdo marka waxa jirta shakhsiyaad hada ka hor ahaa dambiilayaal oo dadkii maartay Oxford dhibaatooyinkii dhacay iyo dambiyadii soo dhacay dadka qayb qaatay in haddana wali la hada carqaladii ay sii wadaan oo maartay dhibaatooyinkii sii wadaan dadkii nooca ahaa marka in marnaba cidnaba aan lagala maartay shakhsina aan lagala xaajoonayn sidii loo horgeyn lahaa sharciga dadkaas iyadoo la raacayo nidaam sharci ah oo baaritaanadii la sameeyay hay'adaha federaalku ay sameeyeen iyo wixii oo dhan la soo qoray iyo xeer ilaalinta federaalku ay keentay in shakhsiyaadka talaabadoodii laga qaadi doono iyadoon cidna aan maartay loola jeedin oo loo beegsanayn mid kale waxa laga hadlay oo kale in hadii ay jiraan muwaaqirkooda ogtaa ilaa heer degmo la soo dhisay heer deegaan marka la dhisay heer degmooyin baa la soo dhisay gobolada la soo dhisay hadii xitaa ay jiraan goldolole ay jiraan shakhsiyaad la sheegay ay jiraan kuwa laftigooda si loo sixraa kabinegu ansixiyadan in ma taqaana sixitaan muwaaqirka dib la sameeyay iyadana oo maartay la waxeeyo waxa kale oo kabinegu eegay shakhsiyaad waxa jiray iyaguna aan marnaba ahayn aan ma taqaana ka soo qayb qaadan kalfadhiyadii kabinetka imanaynin marna aan maartay shaqadii dawladda iyo shacabka loo hayay aan qabanin kuwaana ma taqaana talaabooyin laga qaado oo iyagana ma taqaana waxa way shakhsi kaste oo mas'uuliyad saarantay waxay mas'uuliyad ka saarantay ummadda xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya waxa iska la dhamaan shacabka Soomaalida maadaama uu iska leeyahay xubnaha kabinega jooga iyo xubnaha maamulka jooga iyo xubnaha heer degmo jooga iyo shacabku dhamaantood waxa iyaga ay khusaysaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida waa xisbiga kaliya ee badbaadin kara baa leeyahay therefore xukuumaduna waxa la rabaa inay iyadoo taa ka duuleysa in horumarkii iyo nabadgelyadii iyo cadaaladda dadka la gaarsiiyay ayaa loo baahan yahay taasa marka in tahay lagu shaqeeyo
wax kasta oo lagu shaqeynaya inuu noqdo wax sharciga lagu sal looga dhigay oo dastuurka deegaanka iyo ka dalka iyadoo la cuskanayo in maartay la dhaqangeliyo tahay qofka horta dambiile ah isagu ee dambi galay di wax way sharciga ka talaabo qaadaya maadaama sharcigu uu ka talaabo qaadayo qofka oo sharciyan talaabadiisa laga qaadayso laakiin arinta xisbiga wali lama gelin shirweyni xisbiga uu soo socdaa nidaam baana jira la mari doono nidaamka iyadoo la raacayo qofku inuu dambiilahayn inuu ummadiisa u danqanayo inuu shacabkiisa horumarkeeda jecel yahay ayaa waxyaalo badan baa la eegi doonaa markaas lagu saleyn doonaa laakiin qofkii isagu sharci iyan markii hore ma taqaanaa dhibaato geystay iyo dhibaataysna talaabadeeda iyada laga qaadanaya qofka waxa in badan ku jirta iyaduna ma taqaanaa arin ah dadkaas soo noqonaya iyo dad baa la soo celinaya iyo waxaas jirta waxaan marnaba ayna dawladda deegaanka Soomaalida ayna gorgortan ka galin cid kaste oo bulshada dhibaataysay oo sharci darro maartay sameeysay oo dib soo gaarsiisay bulshada in ma taqaanaa aan sharciga in la hor keeno marna aan cidna gorgortan laga gali doonin intaasi kadib jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya ayaa waxa ay soo saartay bayaan cad oo ay ku muujinayso halka ay ka taagan tahay qaska iyo waliba fawdada siyaasadeed ee lagu dhex tuuray xisbiga talada dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadeenaya ayaa jawxo waxa ay ugu baaqday dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya iyo waliba dawladda deegaanka Soomaalida in wada hadal lagu dhameeyo khilaafka siyaasiga ah ee lagu soo dhex tuuray xisbiga talada dawladda deegaanka Soomaalida ayaa bayaankani oo ay jabhadu ugu baaqday dawladda dhexe in gabi ahaanba loo baahan yahay in meesha laga saaro wax kasta oo keeni kara in talada dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadeenaya ay ka go'do meel aan ahayn shacabka Soomaalida Ogaadeenaya ayaa waxa inoo soo koobaya wariye Maxamuud Sheekh Cali shacbiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan Somali State waxay xaq sharci ah u leeyihiin inay ka tashadaan arrimahooda siyaasadeed iyo nidaamka ismaamul ee ku qeexan dastuurka iyo shuruucda caalamiga xuquuqaha kuwooda ugu muhiimsan waxay ka mid yihiin in dadku ay si xor ah u doortaan madaxdooda waxa intaasi dheer iyadoo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu ku baaqay inuu ilaalinayo xuquuqda dimuqraadiyadeed ee bulshada iyo inuu hirgelinayo furfurnaan siyaasadeed jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya waxay xisbiga talada haya iyo dawladda federaalka Itoobiya ugu baaqaysaa inay ixtiraamaan doonista iyo karaamada shacbiga Soomaaliyeed oo ay iska ilaaliyaan tallaabo kasta oo carqaladeyn karta xasiloonida maamul goboleedka Soomaalida iyo danaha shacbiga Soomaaliyeed khilaaf kasta oo siyaasadeed oo yimaada waa in si daahfuran loo xalliyo iyadoo lagala tashanayo dhammaan dhinacyada saameynta ku leh xalinta iyo xasilinta khilaafka jira jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya waxa ka go'an inay nabadgeliyo iyo dimuqraadiyad ka hirgeliso deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan Itoobiya waxayna dhinacyada saameynta ku leh oo idil ugu baaqaysaa inay mabaadi'daasi u hoggaansamaan ugu dambeyntii ayaa lagu yiri bayaanka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya waxay jawxo ugu baaqaysaa xisbiga talada deegaanka ee Soomaaliyeed inay iyagu xalistaan isafgaran waa kasta oo gudahooda ka dhaxdhaca baacsiga dambiilayaasha lagu hayo kuma eka oo kaliya magaalada Jigjiga iyo waliba dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadeenaya ee magaalada Addis Ababa wararka naga soo gaaraya cawisnimadan caawa ah ayaa waxa ay sheegayaan in Bracket Simon wasiirkii hore ee warfaafinta kana mid ahaa shakhsiyaadkii 27 sano dhibaatada ku hayay guud ahaan qaybaha kala duwan ee shucuubta dalkaasi Itoobiya iyo Tadase Kasa in xabsiga loo taxabay kadib markii ay hay'adaha ammaanku guryahooda ugu daateen Tadase Kasa iyo Bracket Simon oo ka tirsan xisbiga axmaarada ee ADB-da loo yaqaano ayaa waxa lagu eedeynayaa in ay sameeyeen dhibaatooyin bini'aadanimada ka dhan ah iyo sidoo kale dhac iyo boob ay u geysteen hantida shacabka mas'uuliyiintani hore uga soo tirsanaan jiray xisbigii ANDM ee qoomiyadda axmaarada ayaa waxa haatan ay ku jiraan mid ka mid ah saldhigyada booliiska ee magaalada Addis Ababa halkaasi oo lagu wado in maxkamadda looga waarido si loogu soo ogo dunuubta iyo waliba eedaha loo haysto Bracket Simon ayaa waxa uu ahaa mid ka mid ah shakhsiyaadkii ugu awoodda badnaa ee ay isugu dhawaayeen ra'iisul wasaarihii dalkaasi Itoobiya Male Zenawi kaasi oo muddo 20 sano ah isagu talada dalkaasi Itoobiya xoog ku haystay warkii oo aad kala socoteen Ilaahaysa TV akhyaarta hawada nagala socotay intaasi ayuu caawa naga dhan yahay
aan ku bilaabanay sida aad warka ku maqlayseenba waxa qas iyo fawdo siyaasadeed maalmihii la soo dhaafay ay ka taagan tahay gudaha xisbiga talada dawladda deegaanka Soomaalida haya madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga Ahmed Shide ayaa khilaafkani u dhaxeeya waxaana muuqata in shacabka Soomaaliyeed ay si weyn uga soo horjeedsadeen qaska iyo fawdada haatan lagu soo dhaxtuuray xisbiga talada dawladda deegaanka haya oo isagu muddo dheer soo xasuuqay shacabka Soomaaliyeed xisbigan loo soo adeegsaday xasuuqii loo geystay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ogaadeen ayaa waxa la doonayaa in dib loogu soo celiyo qaar ka mid ah adeegayaashii kooxda TPLF waxaana qorshahaasi xambaarsan gudoomiye Ahmed Shide oo isagu haatan u arka hadii una shakhsiyaadkaasi soo celinin in gabi ahaanba uu ka bixi doono xayndaabka siyaasiga ah oo muddo dheer uu ku soo jiray haddaba shacabka Soomaalida ogaadeen ee ku dhaqan magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ogaadeen gaar ahaan dhalinyarada ayaa iyagu waxa ay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan qaska iyo fawdada la doonayo in meesha lagaga saaro hanaankii isbedelka ahaa ee la doonayay in uu ka hirgalo guud ahaanba wadanka ogaadeen lagulana xisaabtamo shakhsiyaadkii iyagu xasuuqa iyo dhibaatooyinka kala duwan shacabka u geystay dhalinyarada Soomaalida ogaadeen ee ku sugan magaalada Jigjiga waxa cod buuxa ay ku taageereen madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo ay aaminsan yihiin in uu yahay rajada kaliya ee maanta shacabka Soomaaliyeed uu haysto waxaana dhalinyaradu ay ku baaqeen in taageerada madaxweynaha geed dheer iyo mid gaabanba loo fuulo si looga difaaco weerarada daandaansiga ah ee kaga imaanaya kooxda ODB-da oramada shakhsiyaad kamid ah oo iyagu doonaya in ay saaxiibadoodii hore ku soo celiyaan hanaanka dawliga ah ee dawlad deegaaneedka Soomaalida ogaadeen shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Jigjiga iyo sidoo kale gobolada kala duwan ee wadanka ogaadeen iyo waliba dalka dibadiisa ayaa dareenkooda waxa ay ku cabirayaan baraha bulshada waxaana ay muujinayaan sida ay u taageersan yihiin in isbedel rasmi ah uu ka hirgalo guud ahaanba wadanka ogaadeen haddaba si aan u ogaano dareenka dhalinyarada ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaanu ku tiigsanay khadka telefoonka waraysi kooban waxaanu la yeelanay حسن نور قاشان oo isagu kamid ah dhalinyarada active-ka ah ee ku sugan magaalada Jigjiga waxana ugu horeyn aan weydiiyay bal hadda sida ay u arkaan waxa haatan ka socda magaalada Jigjiga iyo waliba shirkii magaalada Addis Ababa ku fashilmay ee la doonayay in loogu caga jugleeyo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxana uu ku jawaabay Xasan Nuur khilaafkaasi wuxuu soo shaabaxay maanta galinkii dambe markii ay shir isugu yimaadeen gudoomiyaha xisbiga iyo maartay xubno ka socda xisbiga OPDO ee talada oramada iyo hadda maartay ugu awood roon ee EPLF-ta oo maartay xisbiga EPLF-ta deegaanka talada Itoobiya haya kolba waxa hayo xisbigan qoomiyada talada haysa xisbigeeda un baa talaayo markii horena TPLF bay sadar OPDO un baa talada deegaanka haysa marka Mustafa waxay ku yiraahdeen waa in aad xisbiga dimuqraadiga shacabka ku soo dartaa xubna anagu rabno oo xubnihii hore ee dambiilayaasha ee kuwii shacabkeena soo kala gaabiyay ee u yeerin jireen saraakiisha Tigray u yeerin jireen ee hadda xilka laga qaaday waa inaad ku soo celisaabeen taas oo Mustafa u cuntimi weyday xubnihii gacan ku dhiiglayaasha in haddana shacabka ka soo hor muuqdaan mar labaad taas oo Mustafa uu maartay uu ka gacan odaygay kadib waxay ku yiraahdeen haddii aadan sameynaynin oo xubnaha ku soo celinaynin waa inaad xarsishaa marka khilaaf baa soo kala dhacay Mustafa uu ka soo tagay khilaaf bay ku soo kala tageen marka galabtana inta ayna Xasan inta ayna galabta u soo noqonin iyo bal xagga Jigjiga xubnahan la doonayo in lagu soo daro xisbiga talada deegaanka haya ee madaxweyne Mustafa uu ka biyo diiday yaa kamida oo aad magacyadooda nala wadaagi kartaa hadii aad hayso ama aad la socotaba xubni 10 sano u dambeysay dadkeena goboladay ee gacan ku dhigleesha ee saraakiisha Tigray ee Joogaanada lacagta u qaadi jiray ee qaladeen ku jira su'aad ku jirta Cabdi Fataax uu kamid yahay madaxweyne ku xigeenka Cabdi Xakiim Cigaal uu ku jiro Axmed Ilkaas uu ku jiro waa dhamaan waa dadkii xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ee ku magacawnaa ee saraakiisha Tigray waxa weeyaan Joogaanada lacagta u gelin jiray shacabkeena goboladay jiray weeyaan waa tahay madaxweyne Mustafa waa diiday go'aankii iyo waliba rabitaankii kooxda ODB-da oramada iyo shakhsiyaadkii ay wateen in uu fuliyo dalabkooda bal hadda ka waran dareenka shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Jigjiga waase intii ay
سوية ما أرتي دوقا إن مستفيد يسكت عين الشعب كصومالي بريكول مكاتب بقول وحاول الشعب gobolada iyo degmooyinka tuulooyinka dhammaan shacabku dadka u taagan aad bay arrinkan u xariisan yihiin waxayna isu diyaarinayaan banaanbaxyo iyo mudaharaado waaweyn waxaana ku dhiirigelinaynaa shacabka Soomaaliyeed inay dhammaan isu soo baxaan oo garab istaagaan madaxweynahooda meel ay kasta joogaanba sawirada la soo qaato wadooyinka la xiro in la iska celiyo Itoobiya waxa bedelay maanta Oromo Abiy Ahmed kana waa qeyrayo waa urur dhalinyaro inaga shacabka deegaanka Soomaalida ku dhaqan 75 waa dhalinyaro weeyaan marka waxa rejiimkii aad ka TPLF waxa riday waxa dhalinyaro Oromo weeyaan inagana waa dhalinyaro waxa weeyaan in la soo baxno madaxweynaha garab istaagno waxa ay ka xuntahay Oromo wax kale ma aha waa midnimada yar ay saddexdii bilood Mustafa Show ay leeyahay waxa arkaysaa ملاشيدي دي بوليسكي أورليف عدمدي جوح أو هالمن واحد يساقوه شاهينية أو وذا شيء كيسانية واحد لقحية وأنت ويا ومتني ما يرتنا الشعب كأنه حوي حتى لبيتون كهبني حتى كبعد عود تشجع وتقبر تهرب لقيس قف كورس تاجي أو كلها اللي مشرو واحد لقحية واحد لقحية وأنت سوي مني وذا سويا واحد روان waxay rabaan ina istilkii iyo maartay meedkii wadna dariiqada yeerabaan maanta marka waa inay dhamaan inagu aan ka didno oo rabitaankeenu shaqeeyo waan gartay dareenka waa qowmiyad isu tagtay weeyaan qowmiyad walba dal iyo dul buu leeyahay annagu dad iyo dul baa leeyahay ama waa inaan ixtiraam ku wada noolana ama waa inaan ku kala tagnaa ma aha in la leeyahay waan gartay uu fiicay ka beddelkeena waa in la yiraahdo waan ka dida taas waan gartay shacabka shucuurta ay ka muujiyeen arrimahan siyaasadeed iyo waliba xasaasiyadan ballaaran ee ka soo baxday khilaafka gudoomiyaha xisbiga iyo madaxweynaha deegaanka marka laga yimaado guwaabada iyo dhiirigelinta shacabka aad u jeedisay bal hadda ka waran dareenka guud ee shacabku see u muuqda shacabku maxay leeyihiin see u arkaan shacabku boqolkiiba waxay taageersan madaxweynaha taageersan yihiin aad bay uga soo horjeedaan Axmed sida iyo Oromada aad iyo aad bay uga soo horjeedaan boqolkiiba ka soo horjeedaan boqolkiiba way taageersan yihiin madaxweynaha iyo maartay midnimada taageersan yihiin marka kaliya waxay sugayaan shacabkan asal khadka Itoobiya shacabkan aad maartay social media oo ma isticmaalaan khadka aad u xun waxay daawadaan waa TV-ga deegaanka arrimaha noocaas oo kale laga soo daayo deegaanka waxa ka codsan la madaxweynaha iyo waxa ka codsan xukuumadda waxa ka codsan la horta khilaafaadka iyo waxa jiro dhanba intii feega iyo wararka sax oo dhanba in laga sii daayo TV-ga deegaanka laga sii daayo shacabku la socdaan xogta dhabta waxay sugayaan kaliya waxa weeyaan waa madaxweynaha ka sugaan inuu madaxweynuhu uu shaqaafeed qabto uu sheego arrimaha jira oo maarta culayska uu la socodsiiyay waan gartay laakiin boqolkiiba shacabku inta taagad way sugayaan inuu maarta madaxweynuhu sheego shacabkuna waa inay soo baxaan wayna diyaar bay u yihiin shacabku mana aqbali doonaan qof dambe oo sida waxa lagu soo tuuraa meesha la kala shacabku ma aqbalayaan hatta ay dhalinyarada deegaanka waan garab taaganahay madaxweynaha shacabweynaha waxa leenahay soo baxa aan garab siinay madaxweynaheena rejiimkii magaalada Addis Ababa ee TPLF waxaa tuuray dhalinyarada qiirooga loo yaqaano ee Oromada dhalinyaradeenina waxaad moodaa booskoodii in uu banaan yahay amaba ayna ka muuqanin ee ay isgaabinayaan soo maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyartaas xasano dhalinyarada deegaanka ee maarta Soomaaliya ogaadeen waxaan ugu baaqayaa in ay garab siiyaan madaxweynaha ma aha in la taageero Mustafa waa jiritaankii mustaqbalkeeni weeyaan Mustafa waa shakhsi qoyaan adduunka meesha doonka shaqaysan kara waxa weey waxa lagu gorgortamayaa waa jiritaankeenni weeyaan dhalinyarada deegaanka Soomaalida ogaadeen waxa ka codsan la inay soo baxa inay taageeraan maarta jiritaankeenna in aynaan u daba fadhiisanin waxa weeyaan qof xarunka 9 bilood ku dhashay 9 bilood ku dhootay ma jirto sabab lagu yeeriyo ma jirto sabab lagu kii ugu xumaa ee shalay meedkaaga maartay meedka shahaadada lacagta saari in la yiraahdo qasab maanta lagu keeno kursiga ku soo fadhiisto sabab loo yiraahdo ma jirto waa wax adiga laga arkay weeyaan waa xumi iyo lihiin adiga laga arkay waa inay dhalinyaray waa inay isaamin waa inay ogaanaa inay wadankeena iska leenahay waa inaan amal marti oo kale qof marti oo kale waa inay u fikirin marka dhalinyarada deegaanka waxaan leeyahay waa inaad soo baxdaan waa inaad xukuumaddiina jirta hadda garab siisaan waa inaydin iska diidaan dambiilayaasha la idin keenayo iska celisaan waa inaydin iftiinka yar ee hadda idin soo baxay 4 bilood u dambeeyay aad maarta adeesheen waa inaydin ku farac adeegtaan oo idin ku dhigtaan weeyaan oo shakhsiyaasha caloosha u shaqaystayaasha ee doon raaca waxa weeyaan inaydan dhig jira qosini weeyaan oo aynu hal meel uga soo wada jeedsano haddii kale si doona la inaga yeelaya sadan ogolaan karaa ma ihadigiyo oromaan inay naaton sadan
ogsoontihiin inayaanti beder asaaxaabtu way kaadkaatayoy gaaladii yaryeen ma ogsoontihiin inayaanti beder asaaxaabtu way kaadkaatayoy gaaladii yaryeen innaguna haddii aynu nahay islaam aayaheennu waa ummad yahay midnimo innaguna haddii aynu nahay islaam aayaheennu waa ummad yahay midnimo ahdi male axmaar lagu aaminaayo waa abees abriisiyo yaxaas ahdi male axmaar lagu aaminaayo waa abees abriisiyo yaxaas afka kala hayo ubadiyo caruur oday iyo haween wixii uu warkabaa alamsiinaye waa tahay khiyaarta hawada nagala socota kaasi waxa uu ahaa xasan nuur gaashaan oo ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadeniya oo dareenkiisa ku cabirayay sida uu uga soo horjeedo qaska iyo fowdada la doonayo in laga abuuro gobolka Ogaadeniya waxaana mar kale aan idin leenahay meel kasta oo aad joogtaanba cawaysin wacan oo wanaagsan halkani waa Ilays TV magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadeniya waa magaalo weyn oo taariikhi ah waxaana magaalada Jigjiga ay soo dhisnayd muddo boqolaal sano ah waxaana ay soo martay heerar iyo marxalado kala duwan magaalada Jigjiga taariikhdeeda warbixin kooban oo ku saabsan oo waliba ay ka hadlayaan qaar kamid ah odayaashii muddada dheer u soo joogay ayaa waxa inoo haya saaxiibkay Avocado oo isagu haatan ku sugan magaalada Jigjiga kana mid ah howlwadeennada Ilays TV ee gudaha wadanka Ogaadeniya ee bal hadda aan idinku wareejiyo taariikhda magaalada Jigjiga magaalada Jigjiga waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu qadiimisan geeskan Afrika isla mar ahaantaana ugu mustaqbalka wanaagsan Jigjiga waxay ku taalaa silsilada buuraha Gurays Karamadha waxayna u dhaxaysaa dekada Berbera oo ay u jirtaa 320 kilomitir halka caasimadda dalka Addis Ababana ay u jirtaa 630 kilomitir magaca Jigjiga waxa lagu sheegaa inuu ka soo jeedo shanqarta jugjug waxayna shanqartaasi ka imaan jirtay ceelal laasas ah oo fara badan oo laga qoday togog iyo waadiyaal mari jiray magaalada hareeraheeda isla mar ahaantaana haatan ku yaala magaalada bartankeeda maadaama oo dhulku ahaa dhul carramadow ama dhoobay ahna ceelashu waa ay dumi jireen shanqar daryaan ah oo fara badanna waa ay lahaayeen qoraantii magacan Jigjigana waxaa loo yaqaanay magaalada Laaca magacan Laaca waxaad ka turjumanaysaa inay meeshu ahayd meel aad u qurux badan oo soo jiidasho leh Jigjiga waa dhul carrasan ah oo deegaanka ku wanaagsan isla markaana leh muhiimad ganacsi taasina waxay keentay inay xoogag fara badan ku hardamaan waxaana magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeeda ka talin jiray garaad xirsi garaad Faarax Wiilwaal garaadka iyo qoyskiisu waxay ku xirnaan jireen amiiradii ka talin jiray Herar safarada ka imaanaya ama u socda Berbera waxay sii mari jireen deegaanka oo ka taliya garaadku taasina garaadka waxay ka dhigtay saaxiib aan laga maarmi karin iyo waliba cadow khatartiisa leh 1887 markii ay ciidamadii boqor Mililik qabsadeen Herar isla mar ahaantaana ay jabiyeen xogagii amiirada ayay la ahaatay inuu qabsado dhulkii Soomaalida ee Herar dariska la ahaa sidaas ayaana gudoomiyihii cusbaa ee loo magacaabay Herar Ras Mukanan 1890 uu ku qabsaday magaalada Jigjiga dabadeedna waxa gudoomiye looga dhigay nin ganacsade Carab ah lana oran jiray Cabdalla Daha waxaan oo wanaagsan daawadayaal haddii aan intaasi kaga soo gudubno qadarkaasi hordhaca ah waxaan rabnaa aadan maxamed xasan aadan caga yare oo ah waaya arag oday dhaqameed ka mid ah odayaasha reer Jigjiga wax badan uga soo joogay duruufaha ay Jigjiga leedahay kana mid ah dadkii maxaabiista ahaa ee dhibka faraha badan ku soo mutay jeel ogaadeen inuu inoo taataabto waxyaabaha uu ka xasuusto taariikhda magaaladan Jigjiga iyo waayayaha kala duwanaa habeen wanaagsan Jigjiga waxa weeye taariikh bay leedahay
muddo dheer bay jigjiga dhisnayd jigjiga waxay ahayd waxa ceelka duni jiray ceelka jigjiga lagu bixiyay ceelka jigjiga oo aadiya la hadwaagi hore duni jiray jigjiga lagu bixiyay waxay ahayd taariikh dhistaba joog oo xukunkeedu dhibaato kol waxay Ingiriiska xukumi jiray kol waxa xukumi jiray Hayle Salaase oo muddo dheer xukumi jiray haddana waxa ku xigay xukunkii dargigii oo 17 sano meelaha dhulka xukumi jiray haddana waxa ku xigay xukunkii dhibka badnaa ee Tigrayga ee diyaarada TPLF oo isagu dadka si aan weligeed la arag oo la maqal u galay una adeegsaday cadow hadii la dadka ka dhashay saasay jigjiga ku ahay jigjiga dadku uu ka jabay uu ka cararay jeelashu ku baqbaqtiyay dhibaatooyin aan laga sheekeyn karin baa jigjiga soo maray jigjiga run ahaantii waxay soo martay marxalado aad u fara badan maantana waji bay ku jirtaa jigjiga xillima waqti taariikh intee la eg bay hadda caasimadda waddankan tahay caasimadda intii hadda 27 ilaa 26 intii ay soo galay nimankii loo oran jiray Tigrayga ee xukunka la qaybsay Itoobiya ee hadii ilaahay kililada la qaybiyay bay caasimad noqotay kolka horena gobol weyn bay ahayd oo jigjiga la yiraahdo inta caasimaddu intaa weey hadda okay jigjiga bal dabeecadaheeda magaalo walba waxbay caan ku tahay magaalo bad bay caan ku tahay magaalo webiyaal bay caan ku tahay magaalo qabow bay caan ku noqon magaalo qorrax kuleel bay caan ku noqon marka magaaladu waxay yeelataa tilmaan ama xagga cimilada ah ama xagga astaanta ah oo iyada gaar u ah jigjiga maxaa astaan oo leedahay istiga waxa beeraha astaan oo ah qabow ziyaadana way lahaan jirta hadda way leedahay laakiin jigjiga waxa lagu xusuustaa beeraha waa beeraley weeye jigjiga sideedaba beeraha un bay ku shaqaysaa waa dhul dad xoogsata oo beeraley weeye jigjiga waxay ku taallaa ama ay dhacdaa dhul beereed ban oo webiyaal maraan oo beeraha laga tabcado webi mare tog baa mara jarar la yiraah meel faafan la yiraahdo way ku dhowdahay waa beeraley jigjiga waxay ku magac bixisay beeraley aad iyo aad ayaad u mahadsantahay adeer aadan caga yare daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa qadarkii aan ku fiirinaynay taariikhda magaalada jigjiga oo kooban halka aad naga daawanaysaan waa CNA TV anigoo afkaada maxamed axmedna waan idin la socodsiinayaa tan iyo intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo mar kale cawaysin wacan oo wanaagsan ayaanu idin leenahay khiyaarta hawada nagala socotay waxa inoo soo socda shir lagu qabtay magaalada Diridhabe oo lagu cambeereeyay lagana soo horjeesaday gabood falada iyo xadgudubka maamulka canfartu uu ku hayo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaamada galbeedka gobolka City ee Balhaatan kaalimihiisu suugaanta wareegtada adduunka iyo waqtiga isbedelayba wanaagno horseedo واسامي إنه بري وركتذا أدوك يوختك إسبدليبا ونقنا ورسيدو واسامي إنه بري والله ليه سوايه وكوا إسماعوا ودتوصوا وذمري ودتوصوا وذمري ولا ليه إسواي وجهود كلامي وكوا إسماعوا ودتوصوا وذمري ودتوصوا وذمري من ماضيو يسوع سجينا هدي وين نقصي وإن آسي وذا تشرا وذا قنوعانها
waajibkeena gudanaa magaalada Diridhabe ee ugu weyn guud ahaanba deegaanka Soomaalida Ogaadeniya ee maamulka Itoobiya hoostaga ayaa waxa lagu qabtay shir ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Diridhabe shirkani ayaa waxa hormuud u ahaa siyaasiyiinta iyo sidoo kale ganacsatada aqoon-yahanka hoggaanka dhaqanka ee dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadeniya iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada shirkani ayaa si weyn waxa loogu cambaareeyay loogagana soo horjeestay weerarada daandaansiga ah iyo waliba gabadfalada isugu jira dilka dhaca booba iyo xariga lagu hayo shacabka ku dhaqan deegaamada galbeed ee gobolka City waxaana shacabku ay shirkaasi ku sheegeen in aanay marnaba aqbali doonin falalka waxashnimada ah ee maamulka Canfartu uu ku hayo shacabka Soomaaliyeed ee aan lahayn haatan cid u helisa shirkaasi ayaa waxaan jeclahay qayb kamid ah inaan idin soo gudbiyo oo ay ka hadlayaan siyaasiyiinta ugu caansan dawladda deegaanka Soomaalida Ogaadeniya ee daawasho wanaagsan iyo dawladdan maanta aan haysano marka xiga anigu ma dheeraynayo waxaan oranayaa Itoobiya mid baan oranayaa horta waxa ayaan daraa in 4 sano dad aan isqaadi karin la isku daro dad colaad sanado badan qarniyaal badan ee ka dhaxaysay in la yiraahdo hebel oo adigu hebel maamul waxaas horta waxa ahayd aqli darreehayd de markaa ujeeddo gaar ah ayuu maamulkii hore ka lahaa arrintaana waxaa fulinayay Malas iyo TPLF-ta waxaan ka xumahay maanta Itoobiya oo maanta qaabkii hore ka duwan oo isbedelimi dawladdii federaalka ee maanta joogtay oo xallin karila khilaafkan foosha xun leh colaadan joogtada ah duulaankan joogtada ah ay Canfartu ku wado Soomaalida iyo haddaan dhaafno tani Canfarta duulaanka lamida iyay Oromaduna wadaa waa ayaan daro Oromo oo meeshii maamulaysa oo iyagii maanta meesha ay hayaan inay dadkoogii ay xakameyn kareen oo aynan xal keeni kareen in damaca ka haya mooyaaliya Diridhabe uu meel sare taagan yahay in maanta magaaladii Diridhabe boob dhul dhac nidaam xun maaragtay askar joogto oo dagaalka ay hayaan Soomaali ku haysa guryo laga guba dadka waxaan dhamaanin colaadan dhamaanin iyo booban dhamaanin oo boob dhuleeda uu ka socdo waxa weeye waxaan leenahay dawladda federaalka waxaan leenahay haddii Itoobiya loo rabo maanta inay sii jirto inay Itoobiya mid ahaato waxa loo baahanyahay in cadaalad lagu shaqeeyo in nin kastaba meeshuu degan yahay loo daayo maamulkiisa in colaadan aan dhammaanayn xal loo helo dawladda federaalku waxaan ku cambaaraynaynaa iyada laftarkeega dadka iyagii oo la leynay dalleele maxaa ka dhacay ciidankii oo sidaa u jooga oo fadhiya ayaa la soo dhaafay oo la weeraray oo la laayay oo magaaladii la gubay oo la baleelqaystay meeshaana waxay ka tirsaneed waa deegaankii Soomaalida xilliga ciidankaasi waa ciidan dawladeed dawladdu inay tallaabo ka qaaday tahay waxa inta ka daran ciidankii oo dawladooda jooga magaalada Cadaytu Garmalu iyo maaragtay la keenay ciidan liyu booliis oo Cafara liyu booliis kan Cafartu dadku inta aan garanayn horta deegaankaas waa deegaan Soomaaliyeed 100% hal nin oo Cafari ma degana de kolka la keeno liyu booliis halka la keeno maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay dadka Allah dawladda ku daawanaysa waxay ka dhigan tahay waa dhulka xoog kaga kicso qaado iyo ka dhigan tahay ma aqal Cafara jira hadday tahay Garmalu iyo agaarkeega garbaciisa iyo agaarkeega 40 kilo sarowka 20 hoos 60 kilometer hal aqal Cafar laga helmaayo dad ma aragtay marka la eego cundufiya Cadaytu iyo inta u dhaxaysa waa 100 iyo kusuurki 160 kilometer 160 kilometer halkay Cafartu
halkay ka degtaa labada dhinacba ma jirto dee sidee loo keeni karaa ciidan liyu booliisa oo meeshaa la keeno oy dowladda etoobiyana daawanayso waa dhulka ka qaado xoog ku rar weeyaan dadka masaakiinta ee holo dhaqatada ah waxa weeye waxaan leenahay dowladda etoobiya xilkiinnii waad gudan weydeen waxa weeye waxaanaad ka shaqaynaysaan waa tirtirid soomaaliyeed u soo laama haddii aad rabtaan etoobiya inay sii jirto u soo laama oo midnimada etoobiya maadaragtay sharci ku maamula dastuurka etoobiyana ha noqdo dastuur ummadda u dhexeeya haddii la rabo in la qanciyo qof dee xeer baa jira etoobiya haddii xeerkaa la tuuro meesha xeer jirin baa layidhi waa lagu xooloobaa dee dadku xoolay noqonayaan haddee toole waa laisdhex yaaci dee dowladna jiri mayso markaa dowladda etoobiya waxaan leenahay dastuurka dhowr nabadda dadkaa dhowr dadkaa masaakiinta ee dhibta lagu hayo dhowr dowladda deegaanka soomaalida iyada mid baan odhanaynaa iyada waxaan leenahay madaxda dowladda deegaanka soomaalida war dad niga tirsan iyaa lagu laayay dhulkaa ma tegteenoo ma soo aragteenoo ma u soo tacsiyadayseen ninka mas-uulkii waa meesha dadkiisa lagu laayo waa inuu tego waa inuu soo arko waa inuu soo tacsiyadeeyo de intaa midban inigama hayo waxaan iyaga leenahay war dadkiina u tega dhulkaa dhibtu ay ka jirta cagihiina ku tega soo arka u tacsiyadeeya waxna u qabta midda kale een iyaga ku boorinaya waxaa weeyaan war dadkaasi ma haystaan wixii loo odhanayey horumar nololba ma haystaan biyii baa laga hor joogaa riig haddaan maanta qaado halkaa geeyo meel u dhowa iska daa iyada halkan intaa laysku haystay meel u dhow waa la iman waxaan riigga halkan ka qaad maxaa ugu qadi dadkaa biyaha way dhacday dee iminka 9 bilood ka hor bay dhacday meel madana u dhow riig la geeyey oo loo qodayey riigii oo qodayo oo wada yaa laga qaaday oo la yidhi dadkan inay biyaha helin ceel waxaa jira ganbalu 10 kilomitir u jira garbaciis ceelkaas wuu qodan yahay wuu dhammaystiran yahay in loo furo dadkii waa loo diiday bal eega waxaas dadkaas waxay ninka biyo kuu diiday muxuu ku ogol yahay dowladda etoobiya biyay u diiday ummaddaas xilligaa waxaan leenahay walaalaha yaga kililkeenna maamula in war dadkaa u gurmada war dadkaa horumarkooga eega war dhex tega war waxqabta war nigamaanan quusan nigama quusanayne waxaa weeye war bal waxuun dadkaa u taro oo dhex tega oo ogaada way dhammaatay waktigii maad aragtay la odhanayay ajsaabaa layska maamuliyo telefoon baa laysku maamuli haddaad taa ogolaataan dee waxaa weeye soomaali jiri mayso waani taageersannahay isbeddelkan annagaa keennay odayadan aad arkaysiin ee barbaartan iminka meesha joogtaa isbeddelkan keenay waxa weeye waani taageersannahay 100% laakiin idinkuna xilkaani saaran waajibaadkaani saaran inaad ka soo baxdaan baan doonaynaa waana nidaba joognaa waan ummaddan la gaadha biyi iyo gargaar iyo arrimaha waxii ay u baahnaadeen ee degdega ha la gaadha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu هلا هذا وسوق بقولنا بس واحد سمعنا إن شاء الله إن يدقيسا باغ كسو بحي حق حكومة مرويك عصعص دير بفيسبوك يميديا لا يوقف فين marka waxa la leeyahay media maadaama ay galaan oo dirba la arkay dirba baaqbaana kana soo gaaray albaabka qofka ka baxay ee maracas la baxo isagoo madaxa ku xiran hal la qabtay baa leeyay waana sharci waayo waxa la diidan yahay nidaamka waana loo soo diiday markaan soo howlkan iyo dhibaatadan aan soo marinay ee dadka aan u tacsiinaynin go'aan cadna xukuumaddu waa ka soo saartay marka fadlan marka aan bixi doono insha Allah hadii la yiraahdo marada cas madaxa cid walba ka furay ardayda jaamacadda tagay oo toos buu tagay iyagoo aan wax buuqa iyo waxba aan sameeynin ardayda neersiga saasoo kala ardayda kulliyada TTC saasoo kala shaqaalaha dawladda cid albaabka maracas kala baxayso ma jirto marka hadda waxa inoogu xigaya baaqa ugu dambeeyay ee noo soo xirayay tacsiir iyo tiiraanyada ee u dirayna dadka walaalayeen walaalkiin maadi ayaa noo soo jeedin kadib waxaan samaynaynaa dhageysta kadib waxaan samaynaynaa doorasho markaa furan oo ogaasyada iyo suldaanada oo nala socda intan yar ee hoteelka dhexdiisa ayaan hal marna saa u marayna anagoo si nidaamsan oo isku qaab dhismeed nidaamsan u marayna ayaan sameynaa kadibna
saas ayuu noogu xidhsanaya markaa maadi kusoo dhowow baaqeena kusoo dhowow maadi waxa uu yidhaahdo kaameradaasha waxaan ka codsanayaa xagga dadka inay u jeediyaan maadi waxa uu baaqa marka uu bixinayo waxa uu dhaco ayaad ka daba dhahaysaan dhegaysta istaagay ninku waxaweyaan baaqa soo gaaraya marada madaxa iska filayna waa intaa wey midiyaga la diido dhegaysta ismaqalo dhegaysta walaala inaan istiraayeysan dhegaysta biisu dhegaysta ha ismaqalo biis dhegaysta dhegaysta waxaan iga codsanayaa waa la duubay ininkoo xuran waa la duubay ininkoo xunayna hal mar gacamiina iskaga xidho madaxa oo ka fura kadibna waanana dooni maadina dhegeysan وعاوز شركتك وديك وجزنا إذا مو شدنا الله وين قاعد شدنا الله وين قاعد حتى لا وباقي مناخ نارية أوامر حكومة يسوي توجه إنسان هذا فليو وعاوز شدنا إني وين صنعنا ستة جن محاول هون عشر كي نقول ما طاع الله كان تقبلي ذاك الدجلا وحبوغا يوحنا بالشدة هبيرات يانا تمام يانا نجيب هاي تاني عدو بدنا بين وضلنا هاي وين تكون نحكينا نجيب تاني تكون نحكينا يانا نجيب هاي تاني بربارتا وحالوية قال النظام يسبقنا بالوقاني إيه قال ما عدنت هنون من الناس وعدن ووي مرات انت وتكون هاي مركب واحد دي شيء الاستقلال في عن عشان سيدا إلينا أرمانا النور وعنقرين قراء سامعات الأرضية اللي قطاع إثيوبيا ونبقى كتير ناس يما ما دام حسد نوع استعمال به وعور بين ولاله يا عيب نقول الشركة كمان إني عشاني إنه وعير معنا كوبا بين نقول على اسمه قالوا هلا سيترامو نقدر ترمي نقول كذا أنا وعافية عن الصومال عيب عليه يسمى قشو وإني أقول ترى ودي شيء عدين دول صوبر تاي حدي له أرسل علي طلعوا نقدر يصيري أو نوع شركة وي أنا احترام على اسمه قالوا يا نبوغن بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan tacsiyeynaa dhamaan dadyoogii ku waxyeeloobay dagaaladii ka dhacay qabaleeyadaas xuduudda xiga marka xiga iyadoo laga duulayo shirkeennii maanta oo taariikhdu tahay 18 January 2019 waxaa laga soo saaray baaq ka kooban 5 qodob qodobka koowaad waxaan ka xunnahay kala soo horjeednaa isla markaana cambaareynayna xasuuqii ay ka geysteen ciidamada liyu booliska canfartu qabaleeyada cadeytu cundufo garbaciisa iyo dan la helay labo waxaan dowladda deegaanka Soomaalida iyo dowladda federaalka ugu baaqaynaa inay sharciga hor keenaan ciddii abaabulka lahayd iyo ciddii ka qayb qaadatay xasuuqii ka dhacay qabaleeyadaas saddex waxaan ku baaqaynaa inay dowladda deegaanka Soomaalidu gurmad degdeg ah hagaajiso barakacayaasha ka soo barakacay qabaleeyadaas afar waxaan ugu baaqaynaa dowladda deegaanka Soomaalida in ay si degdeg ah u soo ceshaan fiinta adeegyada arrimaha bulshada ee caafimaadka waxbarashada iyo biyaha nadiifta ee qabaleeyada la soo noqday madax banaanidooda shan waxaan ku baaqaynaa
in si degdeg ah ay xal waara uga gaaraan golaha federationka iyo commissionka xuduudaha iyo maamulka su-aasha qowmiga ah ee shacabkeenna degan qabaleeyadaas si waafaqsan dastuurka wabillahi tawfiiq waxaan samaynaynaa boorasha ayaan furanaynaa waan baxaynaa intaa yare hoteelka dhexdiisa iyagoo suldaanadii iyo ogaasyadii iyo odayo ayna hor socdaan baan maraynaa kadibna saabaan isku ogaanaynaa insha allah haddii la yidhahdo dhalinyarada jaamacadda guddi baa soo xulaysaan guddi akhyaarta hawada nagala socotaay barnaamijyadii kala duwanaa ee cawaysnimadan caawa ah ilaysa t v aad kala socoteen intaasi ayaan ku soo afjaraynaa tan iyo barnaamijyada xiga intaan isugu imaanayno nabadeey iyo nooli kulanti